بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa Dr. Naciima Aadan Xuseen kuna takhasustay cudurrada ku dhaca haweenka waxaan ka howlgalaa isbitaalka Dalmar Specialist and Teaching Hospital ciwaanka maanta soo qaadanayna waxa waaye calool fadhiga ku dhaco hooyooyinka uurka leh qaasatan xilliga Ramadaanka calool fadhiga badanaa waxa keeno hooyada uurka leh in hormoonaadka isbedelayo qaasatan hormoonka loo yaqaano progesterone-ka kaasoo yareenayo dhaqdhaqaaqa oo mindhiciraha uu sameynayo sidoo kale waxa calool fadhiga ama calool adeeg keeno hooyadii oo san qaadanin cuntooyinka aan diirka leh ama high fiberska loo yaqaano sidoo kale waxa keeno daawooyinka qaar oo hooyooyinka uurka leh ay qaataan ay u isticmaalaan sida mataka iyo lalabada iyo daawadan kale kaniinigan irons ama ferrous supplementiska waxa kaloo keeno xilliga uurka leh bilaa ugu horeeyo kale hooyada uurka leh isticmaaleynin biyo badan oo kale oo fluid restriction ay sameynaysa darteed oo ku imaanayo calool fadhiga ama calool adeega calool fadhiga ama calool istaaga oo hooyada xilliga uurka leh ku imaado hooyada inay qaadato cuntooyinka oo high rich fiberska ama cuntooyinka loo yaqaano cuntada diirka leh sidoo kale inay cabto biyo badan xilliga uurka ay leedahay maadaama bil Ramadaan lagu jiro kale habeenkii inay isticmaalaan biyo badan hooyada sidoo kale daawooyinka vitaminiska iyo iron supplementiska inay isticmaasho kuwaas oo ka hortagayaan inay caloosha istaagto ama calool fadhiga imaado sidoo kale inay dhaqdhaqaaq sameyso ama exercise hooyada xilliga uurka leh leedahay si ay calool fadhiga ama calool istaaga uga yaraado hooyada hadii ay dareento inaysan wax caloosheeda ay taaganto oo kale ay waxba ka imaanaynin ama ay adag tahay oo kale saxarada in dhakhtarka la xiriirto si wixii daawooyin iyo talooyin looga siiyo u baahan tahay hooyada uurka leh talooyinkaasina hooyooyinka uurka leh inay cabaan biyo badan si calooshooda u jilacdo iyo inay qaataan cuntooyinka high fiberska oo ama cuntada diirka leh iyo inay isticmaalaan supplementiska iron and vitaminiska Dalmar Specialist and Teaching Hospital. Higsigeenu waa caafimaadkaaga.